xilli muddooyinkii dambe sii xumaanayay xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya kaasoo la xiriiray muranka badda ayaa bayaan ka soo baxay kulankii afaraad ee baarlamaanada Carabta maanta ay ku yeesheen magaalada Qaahire ee caasimadda dalka Masar waxa ay ka soo saareen bayaan isla markaana baaqi u jeediyeen dowladda Kenya. Baarlamaanada Carabta ayaa baaq u jeediyay dowladda Kenya waxaana ay ugu baaqeen inay joojiso sheegashada been abuurka ay ku sheeganayso biyaha waddanka Soomaaliya. Baarlamaanada Carabta ayaa sheegay in biyaha Soomaaliya uu yahay hantida Carabta isla markaana aan sheegan karin xukuumadda Kenya isla markaana ay baaq u jeediyeen inay joojiso sheegashada been abuurka. Baarlamaanada Carabta ayaa sheegay in ay aqoonsan yihiin oo kaliya isla markaana ay aqoonsan yihiin biyaha ay ku muransan yihiin Soomaaliya iyo Kenya inay lahaanshiheeda ay leedahay dalka Soomaaliya. Baarlamaanada Carabta ayaa dalalkooda ugu baaqay in ay garab istaagaan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si meesha looga saaro sheegashada been abuurka ay sheeganayso dowladda Kenya. Hadalkani uun baarlamaanada Carabta ayaa yimid kadib markii maalintii shalay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya ay warqad ay u qortay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaas ay ku dalbanaysay in qaramada midoobay ay soo fargeliso muranka u dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya. Dowladda Kenya ayaa warqad u qortay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaas ay ku doonayso in lagu soo fargeliyo isla markaana lagu baajiyo muranka badda ee u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si aan toos ahayn ula hadlay guddiga joogtada ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay asigoona ka dalbaday in loo istaago sidii xal waara loogu soo dabaali lahaa xiriirka sii xumaanaya u dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya. Kenya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay bilowday dhinaca warar maadaama waqtigii lagu kala bixi lahaa badda ay soo dhawaatay. Wasiiradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya haweeneyda lagu magacaabo Mrs Juma ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay socdaalo ku mareysay wadamo ka mid ah gobolka gaar ahaan dalalka Itoobiya iyo Djibouti iyo deegaanada maamulka Somaliland taas ay ku raadinaysay sidii dhexdhexaad loogu sameyn lahaa dalka Soomaaliya iyo Kenya. Balse muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa wasiiradaasi waxa ay ku sugnayd magaalada Djibouti caasimadda dalkaasi Djibouti halkaas ay kulamo ay kula yeelatay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayadoona sheegtay in ay salaan ugu sido madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta isla markaana ay ka dalbadeen in uu soo farageliyo Geele xiriirka sii xumaaday ee u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Qaramada midoobay ayaa ka walaacsan xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya balse waxaa la filayaa in dabayaaqada sanadkani lasoo afmeero muranka badda ee u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Dadka u dhunduleela arrimaha Afrika ayaa sheegay in dabayaaqada sanadkani ay ku dhawaaqdo maxkamadda caalamiga ah ICJ isla markaana la filayo in ay baddaasi loo jaro isla markaana ay leedahayba dalka Soomaaliya Kenya ay halkaasi ay kala soo hoyato guuldaro. Dowladda Kenya waa ay ka dherigsan tahay inaysan lahayn ayaa lagu yiri bayaankaasi ka soo baxay wadamada Carabta inaysan lahayn balse waxay doonaysaa inay boob iyo xoog ay ku qaadato. Dowladda Kenya ayaa la filayaa in natiijada ay kala soo hoyato maxkamadda caalamiga ah ICJ oo kaliya ay u dhiman tahay ku dhawaaqista maadaama kiisaskii hore loo soo qaaday ee meeshii ay ku dhamaadeen waxaana la filayaa dabayaaqada sanadkani in lagu soo gabagabeeyo maxkamadda caalamiga ICJ. Dowladda Kenya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay cadaadis saareysay hogaamiyaasha Soomaalida kuwaas oo xilliyada qaar isaga kala gooshay gudaha dalka Kenya taasoo horey ay u soo celisay siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo sheegtay inay caqabad ay ku yihiin isla markaana ay qayb ay ka yihiin